السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkana maanta waxaan qaadanaa taleefankaaga si aad ugu hortagi kartid fayrasyada ku dhaca. Fayrasyadan waxay ku imaadaan inaad meelaha lisa taleefanka ku booqatid, hadday noqoto dhanka internetka iyo hadday noqoto dhanka oo aan internetka ahayn ee offline-ka. Marka dhanka offline-ka waxay noqon karaa sida in memory gelisi iyo waxyaabo la mid ah. Marka muuqaalkan waxaan qaadanaa sida aad ugu hortagi kartid fayraskaasi ha yaraado ama ha weynaadaba. Waxaa jira ogtihiin antivirusyo badan oo taleefanada lagu soo dejiyo kuwaas oo halis ku sii ahba inaad taleefanka ku isticmaashid, xogtaada iyo datadaadana halis ku sii gelinayso. Marka antivirusyadaas badanna kuwa aan sax ahayn iyo kuwa oo sax ah waa jiraan, laakiin taleefanka kaliya waxaa loogu talagalay hal antivirus oo lagu keeno mar walba. haddii uu taleefankaaga Android yahay waa muhiim inaad markaas intaas ka fikirtid saad soo furtid oo antiviruska saxda ah loogu talagalay inaad soo degsatid. waxaa soo galaysaa ugu horeyn markaa setting kadib markaad soo gashid waxaad raadinaysaa meesha ku qoran tahay battery and device care. markaa ku dhufatid iyadana qaybtan ayuu kugu soo baxaa. marka waxaad ka dooranaysaa adiga marka anaga waxaan quseeyay meesha ay ku qoran tahay device protection. meeshaas ayaa off ka ah mar walba, halkaasna waxaa ku jiro antiviruska saxda ah ee taleefanka loogu talagalay. marka meeshaas ku dhufo kadibna turn on markaad dhahdid halkaas wuxuu kusii weydiinayaa halkan ayuu kugu soo qorayaa marka antiviruska saxda ah ee loogu talagalay. waxaad ku dhufanaysaa marka meesha ay ku qoran tahay check it out ee ugu hooseyso. marka meeshaas ayaa kusii dhufanaysaa. markaa kusii dhuftid waxaad kasii dooranaysaa meesha in qaybta ugu dambeysa ah inaad agree dhahday check it out dah. kadibna wuxuu kuu soo saarayaa kuu geeni doonaa Galaxy Store-ka. halkaasna waxaad soo dejinaysaa meesha ay ku qoran tahay mobile security antivirus anti-theft. marka antiviruskan ayaa loogu talagalay taleefanka, kan ayaa soo degsanaysaa. muuqaal horena waa ka sameeyay. marka markaad soo degsatid install soo dhaha waan isku laabanayna marka intuu soo dhameynayo. marka aad soo degsatid McAfee-ga kadib ku soo dhufo waxay suginaa inta uu isku diyaarinayo. hadda gudaha ayaa usoo galnay. waxaanu ka qabanaynaa markaa in aan ku settingka gudaha aan ku xirno si hadhow internetkeena markaan isticmaalayno aan ula socono inuu fayrasku taleefanka soo galayo iyo in kale. marka saan internetka u ilaalisid inaa internetkaaga dhib kaga soo gaaro markaad isticmaalaysid. haddii fayrus markaas ay kugu taleefanka soo galay iyo in kale marka halkan ayaa taabanaysaa ay ku qoran tahay safe webkaas ayaa furanaysaa. kadibna halkan dhagsii turn on sii dhaadiyadna. marka turn on soo dhaaday gudaha settingka ayuu galaa. gudaha settingka wuxuu ku sii galaa meesha ay ku qoran tahay accessibility inta meesha ay ku qoran tahay install service. kadibna ka dooro McAfee on dah. marka kadib browser walba ee aad booqatay hadduu yahay Chrome, Samsung, Internet Opera iyo Firefox intaba waa uu ka difaaci doonaa fayraska kaga imaanaya meelahaas. hadday noqoto dhanka caadiga ee offline-ka bahalkan wuxuu ku fiican yahay inaad haddii mobilkaaga location-ka u furan yahay inaad ka hortagi kartid in laga xado mobilkaaga. markaasaad mobilkaaga aad u ogaatay in laga xaday in kale waa inaad
furtaa locationka mobilka. qaybtan ay ku qoran tahay antirta ay ku dhufnaysiin oo ah qaybta laga ilaasho taleefanka. markaas saad u soo furtid oo ugu xirmo wuxuu u baahan yahay Gmail. haddii Gmailka ay leedahay Gmailka ay geli kadibna next dhah. markaa kadib password ay ku weydiinayaan, passwordka geli. passwordka markaa gashatid yani sidaas ayuu ku xirmayaa. waxaanu ku dhahaa markaas kadib locationka ugu dambeeyay mar walba la soco. muuqaalkan dadka sheey fadlan like saarna una soo bir haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato maasaladin naguna soo bira waxaan sameynaa channel Telegram ah kaasoo aan ugu talagalnay inaan isku xog wareysano halkan maasaladin kusoo bira channelkeena soo muqtar waxaan idin dhigaa linkiga description-ka halkan ayaa mar walba iskala soconaynaa waxyaabaha cusub ee nagu soo kordha maasaladin.